Ku soo biir kanaalka Sahanka Dunida oo subscribe saar haddii aad ku cusub tahay. Asalaamu calaykum. Dadka qaar waxay u haystaan in guushu ay la imaan karto nasiib, laakiin xaqiiqdu gaaritaanka guushu waxay u baahan tahay shaqo iyo u heelanaanta guusha iyo ka shaqeynta sidii loo wajihi lahaa dhibaatooyinka guuldarada iyo rajo la'aanta. Gaaritaanka guushana ma ahan wax fudud, maxaa yeelay waxay u baahan tahay adkaysi iyo go'aan qaadasho, iyadoo ay u sii dheer tahay sameynta dadaal ku filan. Waxaa jira astaamo dhowr ah oo qofka guuleysta uu leeyahay oo ayna ku jiraan kuwa soo socdo. Awood u lahaanshaha khatarta. Qofka guuleysta wuxuu leeyahay u diyaargarowga khatarta iyo tijaabinta si uu u gaaro himilooyinkiisa. Guusha waxayna imaanaysaa marka qofka uu go'aansado inuu khatar galo oo uu yeesho geesinimo uu ku sameeyo shaqo joogto ah in la qabto. Haba yaraatee, wax walbo la joogteeyo ayaa sabab u ah guusha, mana ahan wax fudud, maadaama dadka aad ugu heelan shaqada iyo sii wadida ay yihiin kuwa ugu guusha badan. Sidaas daraaddeed, qofka guuleysta waxaa looga baahan yahay in uu si joogto ah u shaqeeyo qirashada qaladaadka. Qofka guuleysta wuxuu diyaar u yahay inuu qirto qaladkiisa, sababtoo ah guusha lama hubo isku dayga koowaad. Qofka guuleystana wuxuu wax ka bartaa qaladaadka, wuxuuna raadiyaa inuu ka fogaado qaladaadkaas. La qabsashada. Qofka guuleysta wuxuu la qabsan karaa caqabadaha iyo dhibaatooyinka laga yaabo inuu kula kulmo meel ka baxsan wadada u qorsheysan ee u jeexan dariiqa guusha. Soo food saaridda cabsida. Qofka guuleysto wuxuu awood u leeyahay inuu xakameeyo cabsida, isla markaana uu xakameeyo noloshiisa, maadaama aysan ka dhigaynin cabsidaasi inay xakameyso kalsoonidiisa oo ayna niyad jabiso go'aankiisa. Ku dheelitirnaan, sii wadis iyo hore u sii socosho. Guushu kuma timaado habeen kaliya, halka oo ay u baahan tahay ballanqaad iyo u adkeysiga dhibaatooyinka, iyo sidoo kale inaadan ka takhalusin riyooyinkaaga, maadaama qofka guuleysta uu la kulmi karo qaar ka mid ah dad niyad jabsan iyo kuwa leh ujeedo xun. Laakiin qofka guuleysta wuxuu sii wadaa inuu gaaro hadafkiisa oo uu sidoo kale ka takhaluso caqabadaha ku meel gaarka ah iyo dadka riyooyinka dadkooda baabi'iyo. Yididiilo iyo waxqabad. Qofka guuleysta wuxuu ku raaxaystaa kalsoonida iyo yididiilada iyo waxqabadka, wuxuuna isku dayaa sida ugu macquulsan inuu ka fogaado arrimaha khilaafsan himilooyinkiisa iyo inuu si wanaagsan ugu fakiro arrimaha caawinayo inuu gaaro himilooyinkiisa. Tanina waa in la ilaaliyo waxqabadka shaqada si loo gaaro himilada. Jaceylka shaqada. Waxaa lagama maarmaan ah qofka guuleysta inuu jeclaado shaqada uu qabanayo, maadaama taasi ay ka dhigayso inuu shaqeeyo caajis la'aan, isla markaana waqti badan uu ku qaato shaqada isaga oo aan dareemeynin dhibaatooyinka. In loo beddesho fursad. Qofka guuleysta wuxuu ka faa'iidaystaa guuldarada, wuxuuna u beddeshaa daciifnimadiisa quwad, awood ama xoog si uu u gaaro guulo waaweyn.